dalka Denmark ayaa lagu qabtay xaflad lagu taageerayo maamulka boqol sare ee looga dhawaaqay degmada Ceelbarde. Faafahinta warkan Faysal Karatay ayaa ka soo diray Denmark. إله سبحانه وتعالى قرآن كيسوح كله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إله حلا إذنك يكون إذنكو الرئيه كتبت اللسية يهودية النصارى وحانو دردار نهار أرن هل كارن وامحي إن الله كبقان سبحانه وتعالى maamulka boqol sare oo lagu dhisay 25 December magaalada Ceelbarde maamulkaas oo lagu doortay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen madaxweynahana loo doortay Axmed Sheekh Maxamed Loxos iyo ku xigeenkiisa oo loo doortay Cabdullaahi Sahal Xuseen waxaan rabaa oo kale aan ku hadlayo maamulka guddiga jaaliyadda boqol sare inaan u mahad celiyo guddiga qabanqaabada ee soo qabanqaabiyay xafladan aadka u quruxda badan waxaan idin leenahay walaal ilaahay xilka idin fududeeyo waxaan leenahay hambalyo waxaan idin leenahay maamulka jira noqda ummadii halka joogtay ee ay hada ka talinaysay yaa waxay garteen inuu dan u yahay madaxweynaha kan Axmed Maxamed Loxos madaxweyne mashruuc inuu u noqdo madaxweyne ku xigeen u noqdo Cabdullaahi Sheekh Xuseen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh boqol sare اعتراف uga baahnay isaga laakiin waxay uga baahan yihiin inuu dastuurka ilaaliyo dastuurka uu madaxweynaha ku yahay madaxweynuhu waa inuu ilaaliyo oo dastuurku muxuu leeyahay gobol kasta degmo kasta xor waxa uu tahay iskeedu ismaamusho annagoo halkan caaw isugu nimid inaan u hambalyeeyno oo bogaadin u dirno walaalaha iyaga sameystay maamulka madaxa bannaan boqol sare state iyagoo ah 3 degmo oo waaweyn anagu waxaan soo dhaweynaynaa boqol sare madaxweynaheeda Axmed Sheekh Maxamed iyo dawladda uu dhisi doono iyo ugaaska beesha iyo madeegaankaas ugaas Khaliif amayna ugaas Khaliif waxaanu leenahay waanu u ducaynaynaa maamulka koonfur galbeed ee aan dariska iyo walaalaha nahay in ay daris wanaag iyo walaalnimo iyo nabad iyo soo dhaweyn ay kula noolaadaan maamulka boqol sare state ee cusub boqol sare iyo ragi bashiyadaha mudane madaxweyne Axmed oo la mari karay iyo malaayinta kale maamulkeeda wada boqol sare state aad iyo aad baan أنا أتاجر صناعي أنا صاحب يا شيبة أنت هذا الشيء أنت دم الله بضبا waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan rajaynaynaa maamulkaas in la garab istaago si bini'aadanimada ku taageer afka wax ma taraayo in caafimaad ahaan lagu garab istaago waxbarashada lagu garab istaago wixii dadkaas ay u baahan yihiin oo intaas oo sanay u baahnaayeen awoodeena wixii ah inaan ku garab galno waxaan u rajaynayaa madaxweynaha meesha laga doortay boqol sare Mr. Mashruuc in uu noqdo nin u dadaala oo cadaaladda ka sameeya dalka iyo deegaanka dhawaaq dheer baanu ka doonaynaa beesha caalamka u dhawaaq wadanka in maadaama nabad yahay horumarin baa laga rabaa annagu qaybteena ka qaadayna qurba joog kolkaan nahay aqoonyahanka cid kasta way imaan laakiin muhiimaddu waxay tahay initiative waxa laga rabo qofka deegaanka jooga waxaan u baranay siyaasiyiin Soomaali oo intay maamul sameystaan inay gorgortan ku galaan waxaan inaga codsanaynaa markii inay gorgortan ku galin kan aysan noqonin meel aad ku gorgortaan ama wasiir aad ku qaadataan ama madaxweyne ku xigeen aad ku qaadataan ay noqoto maamul dad dhistay dhulka caawa aan ka hadlaynay madaxweynaha nagala soo hadlay ee Ceelbarde waa la wada degan yahay hal lagu kala badnaado waa la wada degan yahay marka waan diidnay 4.5 waxaan rabnaa deegaan in wax lagu qaybsado anoo ku hadlayo jaaliyadda Sweden waxaan halkan uga hambalyeeynaa madaxweynaha cusub iyo dawladda cusub ee lagu dhisay boqol sare ayaanu hambalyo ugu jeedinaynaa hiili hooba leh xafladaas oo ku soo gabagabooday jawi aad iyo aad u fiican Universal TV magaalada Copenhagen wadanka Denmark Faysal Karatay